saaka aroortii hore magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya waxaa dagaal xoog leh oo ku dhaxmaray ama uu ka qarxay ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa Galmudug iyo sidoo kale xoogaga ahlu sunna oo muddo 3 toddobaad magaalada maamulay. dagaalka wuxuu ka bilaabay 3 jiho oo ah koonfur bari iyo waqooyi waxaana saacado ka yar markii uu dagaalka socday magaalada inta ugu badan gacanta ku dhigay ciidamada militariga Soomaaliya. daqiiqada kadib waxaa soo rogaal celi ahlu sunna oo magaaladii qabsatay iyadoo dagaal kale oo rogaal celis oo ciidamada militariga Soomaaliya ay qaadeen oo sababay in duhurkii maanta lagu kala baxay ama lagu adkaaday magaaladaas oo ay si buuxda gacanta ugu gashay ciidamada xoogga dalka. xaaladda ayaa deganeed duhurkii ilaa gabaldhici maanta waxayse xaaladdu isbedeshay markii salaada maqrib kadib ay weerar culus oo rogaal celis ay qaadeen xoogaga ahlu sunna ee gobolada dhexe ee Soomaaliya ka dagaalamaya ama maalmahan dambe dhaqaaqada ka waday. ciidan iyo gaadiid dagaal oo gurmada oo dhinaca hursho ka baxay ayaa biiriyay ama awood dheeraada u noqday ciidamadii uu hogaaminayo Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ee Gurceel ku sugnaa oo maanta duhurkii magaalada laga saaray. waxay suurto gelisay in ay qabsadaan inta ugu badan magaalada gaar ahaan xarunta degmada saldhigga booliiska iyo qaybo kale oo ka agdhow oo xaafadaha magaalada ah. waxaana hadda la soo warinaya in ciidamada militariga Soomaaliya ay joogaan dhinaca koonfurta ee magaalada Gurceel halka dhinaca waqooyina ay joogaan ciidamada ahlu sunna. xaaladdu way degan tahay waxaase weli dhici kara ama suurtagal ah inuu saacad kasta halkaas oo ka bilowdo dagaal. dhimasho badan iyo dhaawac ayaa ka dhashay si rasmi ah looma oga tirada rasmiga ah hase yeeshee waxa ay xubnaha amniga saraakiil ka tirsan Galmudug ahlu sunna iyo dad fara ku tirsan oo magaalada ku nool ay u sheegeen in ugu yaraan 40 qof ay dhinteen tiro intaas ka badan ay dhaawacyo ka soo gaareen. dadka dhintay waxaa ku jira saraakiil ka tirsan danab iyo sidoo kale gorgor haramcad iyo qaybta 22aad ee militariga Soomaaliya. sidaas oo kale waxaa dadka dhintay ku jira ciidamo maleeshiyada oo ka barbar dagaalamaya dhinaca dawladda. ahlu sunna dhankooda waxay halkaasi ku waayeen saraakiil muhiim ah oo ku jiro ninkii u qaabilsanaa ama taliyii ugu magacaabnaa saldhigga magaalada iyo sidaas oo kale hogaamiyaal ka barbar dagaalamaya amaba hogaaminaya maleeshiyaadka ahlu sunna. wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Gurceel waxaan ka wareystay wariyayna Farxaan Maxamed Cabdi. Nasaba maasan tahay degmadan Gurceel ee gobolka Galgaduud waxaa ilaa iyo maanta ka socday dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa ahlu sunna kuwaas oo maalmihii dambe isku horfadhiyay degmadan Gurceel. dagaalkan xoogan ayaa inta badan waxa uu ka qarxay goobaha sida saldhigga jaamacadda iyo sidoo kale dhankaas waqooyi wadada ka soo gasha dhanka Balanballe oo ay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo ciidamada Galmudug ay dhowr jiho ka soo galeen degmadan Gurceel. goobaha ay ka soo galeen waxaa kamid ah jaamacadda saldhigga iyo sidoo kale wadadan ka imaanaysa dhanka waqooyi gaar ahaan degmada Balanballe ee gobolka Galgaduud. dagaalka ahaa mid xoogan la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxa uu soo gaaray ilaa gabaldhici maanta ilaa iyo dhowr mar ayaa la iskala kacay gudaha magaalada oo hadda lagala wareegay marba dhowr mar lagala wareegay kuwa ahlu sunna sidoo kale mar kale ayaa dib looga wareegay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya. khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaalkan kuwaasi oo ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya ilaa iyo 50 qof sida aan ka soo xignay qaar kamid ah dhinacyadii dagaalamay iyo sidoo kale ila wareedyo muhiim ah. marka wada inta badan goobihii lagu dagaalamay galabta gabaldhici waxaa mar kale dib loo wareegay ciidamada ahlu sunna wal jamaa iyadoo dawladdu ay hadda magaalada ka joogto dhanka koonfureed oo kaliya waxaana la soo warinayaa in halkaasi ay gabaldhici kadib xogta sida rasmiga ah looma xaqiijin karo oo lama ogaan karo dhinacyada inta kala gaartay iyo sidoo kale gaadiidka iyo hubka ay kala qabsadeen. labada dhinacba waxa ay sheegeen inay kala qabsadeen baabuur si gaar ah ahlu sunna wal jamaa waxa ay sheegtay in ay dhowr baabuur inay qabsadeen oo kamid yahay gaari kuwa xabadu ay sakarin oo watay taliyaha guutada 19aad General Mas'uud Maxamed Warsame. marka dagaalka dacaa uma istaag musoo socyo hadda oo wax yar ilaa maqribadii soo goos uga socda ayuu markii dambe iska istaagay. mar walba dagaal ayaa la fira karaa waxaana magaalada laga maqlayaa
qisaas intii ugu dambeysay ayaana hadda isaga soo huleeshay magaalada. sidoo kale meelaha qaar hoobiyaal ayaa ku dhacay maanta kuwaasi oo dhaliyay khasaare kala duwan oo u badan dhaawac. maxaa iga sheegi kartaa hadda xaaladda ay ku sugan tahay magaalada? ma waxaan oran karnaa ahlu sunna si buuxda gacanta ugu hayso mise dawladda weli qayb ka mid a magaaladii way joogtaa? dawladdu ayaa qayb ka mid ah caawa joogta magaalada, waxaana goobihii ay maanta ka baxeen ahlu sunna oo ay dawladdu la wareegtay ay mar kale dib ula wareegeen. marka di magaalada aad fiiriso dhinaca waqooyi waxaa ka jooga ciidamada ahlu sunna, dhankan koonfurna waxaa ka jooga kuwa dawladda Soomaaliya oo garabsanaya dawlad goboleedka Galmudug. Xuseen, ahlu sunna ciidan gurmada iyo gaadiid dagaal inay u yimaadeen galabta markii ay rogaal celiska ku galayeen magaalada ayaa la soo warinaya. ciidankan xaggee ka yimaadeen, intay soo mareen, wax faahfaahin ma laga hayaa? sidaas lama sii xaqiijin karo faahfaahin dheer, balse waxaa dadka qaar ay ku sheegayaan in ciidamadan ay ka yimid Hoorshe oo maalmihii dambe ku sugnaayeen hogaanka ahlu sunna abaabulkoodana ay kasoo bilaabeen. ilaa iyo dhowr baabuur oo kuwa dagaalka ah ayaa lasoo sheegaya inay halkaasi kasoo galeen. sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya dhanka Hirshabelle waxaa uga yimaaday gurmadyo kala duwan kuwaasi oo maanta soo maray degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. way ugu dambeyn maxaa dadaal ah oo socda oo nabadeed oo ay dhaqanka iyo culimada iyo dadka magaalada maxay wadaan maadaama ciidan Soomaaliyeed oo hal dhufeys ama hal aag ka wada dagaalami jira hadda isdilayaan? ma jiro wax dadaal ah ama se waan oo socda, kaliya waxaa la sheegayaa in qoladii faysa ama qoladii la soo afjara maana qoladii kale ay u tarinayso degmadan Gurceel ee gobolka Galgaduud.